waxaan garanay inaan dhiirigelin u samayno inaan soo bandhigno quruxda iyo bilicda dhalinyaradaasi ay leedahay inaan soo bandhigno oon tusno dadkeena ciidanka booliiska inay ka mid yihiin dhalinyaro tiro badan oo runtii qayb hadda ku soo biirtay ciidanka iyo kuwa hore ugu sii jiray intaba oo ah dad ehel u ah diinta inay ka buuxaan oo ku jiraan inaan dadka Soomaaliyeed tusno idinkuna aad marxaati ka ahaataan siyaasadda dawladda wax ku cusub ma aha maanta in diinteena la xoojiyo dad islaamaynu nahay waynu ku dhaqanaa shuruucdeennana laf dhawar bay u tahay shariicada islaamka inaynu maaragtay ku dhaqanno oo aynu xoojino qaybta ugu weyn ayay inoo tahay laakiin tan maanta aan goobjooga aanu nahay waa mid hoolkan ku cusub in badan baad hoolkan munaasabada aad kaga soo qayb gasheen munaasabad waaweyn oo qarankeena hortabin u leh oo lagu qabtay maaragtay hoolkan laakiin in sidii munaasabadaha loo soo camirayay maanta loogu soo camiro tartan quraan akhrisa oo ciidanka booliiska dhaxdiisa waxaan rajaynaynaa inay wax fiican inuu ka soo baxo ciidamada qalabka sida oo dhanna sida hadda aanu ka warqabno ama faritaanada madaxdeena qaranka ayna fareen ay tahay in aan ku dhiirigelino abaabulana way yaqaanaan dhalinyaradeena iyo dadkeena waayeel iyo dhalinyaro inta ka dhaxla diinta waynu naqaanaa inaan abaabulo oon dhiirigelino oon soo saarno dadka tusno dhammaan ciidamada qalabka sida iyo xarumaha dawladda way ka socon doontaa haddii alla idmo annagu waanu ugu horeynaa waxaanu tixgelinay oo ciidanka booliisku siyaasad ahaan uu u tixgeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka ku soo biiraysa iyo kuwa ku soo biiray hore u shaqeynayay ciidanka ka midka ah ee diinteena yaqaana ee xaafidka ah ama aan laga warqabin oo aan talisku ka warqabin ama dadka Soomaaliyeed ba uusan ka warqabin inaan ku dhiirigelino haddii uu cusub yahay oo ciidanka ku soo biirayana shuruudaha iyo habraacyada ciidanka laga mid noqonayo inaan ka dhigno qodob ka mid ah oo ka ugu muhiimsana inuu yahay maaragtay xaafid ama uu diinta si fiican u yaqaano inaan maaragtay aan kala mid dhigno shuruudihii hore ciidanka loogu qaadanayay ahaa inuu dugsi sare haysto iyo wax u dhigma iyo jaamacad inuu haysto iyo wax u dhigma marka runtii si fiican bay noogu suurta gashay dhalinyaradeennuna maaragtay dhalinyaradeena Soomaaliyeed ama dadkeena Soomaaliyeed ba 90% waa dad lagu soo barbaariyay diinta iyo akhlaaqda ama 100% ba aan dhaho marka munaasabadan maantay aan nagala soo qayb gasheen waxay ku salaysan tahay dhiirigelin aan ku dhiirigelinayno dhalinyarada ciidanka booliiska ka midka ah ee ayagu is abaabulay ee na tusay inay yaqaanaan maaragtay diinteena oo ay xaafid yihiin inaan soo bandhigno oo nala aragtaan intaas ay ku salaysan tahay waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doono dadka Soomaaliyeed aan uga faa'iideyn doono ayaguna ay ka faa'iideen maaragtay kaga faa'iideysan doonaan wacyigelinta iyo baraarujinta ciidanka booliiska dhaxdiisa oo Ilaahay ugu dhawaadaan oo u sheegaan maaragtay waxa xun inay ka wacyigeliyaan oo ka wacdiyaan waxa wanaagsanna ay u sheegaan ayaguna akhradooda ay ugu dhawaadaan dadka Soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan ciidanka booliiska inay leeyihiin dhalinyaro ama dad wiilal iyo gabdho isugu jira oo wanaagsan oo waxa fiicanna u sheegi kara ciidankooda waxa xunna ka reebi kara dadka Soomaaliyeedna si fiican oo la dhaqmi kara oo maaragtay wax wanaagsan u sheegi kara guud ahaan inaan leenahay inay ogaadaan dadka Soomaaliyeed ujeedkayaga maanta waa intaas waxaad la socotaan muddooyinkii la soo dhaafay ururo ku gabanaya diinta oo u fasiranaya siyaabo aan sax ahayn
oo dadka dhiigooda ku banaysanaya inay maaragtay qarribeen wadankeena oo ay maaragtay marin habaabin fara badan ay ku sameeyeen guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhalinyaraduba ha ugu badato inaan kala dagaalanno fikirkaas ciidanka dhaxdiisa iyo bulshada dhaxdooda annaga oo maaragtay kaashanayna ama maaragtay ay nagu hogaamin doonaan culimada Soomaaliyeed ay nagu hogaaminayaan oo ga dambeynayno annaguna inta karaanka iyaga inta aanu hayna maaragtay aanu mas'uulka ka nahay dhalinyarada iyo culimada ku dhex jirta inaanu banaanka soo dhigno oo nu wacyigelin xoogan aanu ka samayno bulshada dhaxdeeda isdhaxgalka bulshada iyo booliiska dhaxdiisa intaba marka ujeedka iyagu waa intaas weeye inaanu dhiirigelino oo nu ku dhiirigelino maaragtay dhalinyarada culimada ah ee ciidanka ku jirta inayna cumaamad iyo koofi kaliya ayna ku dhex wadanin ciidanka dhaxdiisa inay madax ka dhex noqdaan oo ayagoo madaxa ay hogaamiyaan oo culimnimadooda ay ku hogaamiyaan waxa loogu nugul yahay ama loogu dhaga nugul yahay maantay wax lagu hogaamin karay waynu ognahay waa diinteena way marka inteennii hore ee shaqada ku jirtayna kamaanan tagsanayn waanu ku dhaqmaynay waanu ku hogaaminaynay dhalinyarada iyo saraakiisha wiilasha iyo gabdhaha isugu jirtay xufaada ciidanka booliiska kumanaanka ee ku jirana inaanu kor soo marin haddii alla idmo oo hor maaragtay hormuud aanu ooga dhigno ciidanka go'aankan qaadanayna kaas weeye haddii alla idmo nimankan khawaarijta ee mar hawaabinta ku wada dadkana inaan kaga hortagno oo nu iskaga difaacno dadkeenana aan kaga difaacno annaguna aanu iskaga difaacno maaragtay ayaanu ku dadaalaynaa haddii alla idmo inta markaan ka baxo waxaad la socotaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socda dalka marar hawaabin xoogan oo ay sameynayaan khawaarijtu oo ay dadka Soomaaliyeed iyo dawladda iskaga horkeenayaan oo ay leeyihiin canshuur baa laydinku soo rogay iyo hantidiinii baa la dhacayaa iyo maaragtay idinka la idin dan leeyahay ay leeyihiin waxyaabaha marar hawaabinta ay sameynayaan ay tabardarradu u geynayso waxyaabaha rabno inaan kaga hortagno ayay qayb weyn ka tahay maaragtay dhalinyaradani haddii alla idmo iyo kuwa badan oo kale oo la mida waxaan rabnaa inaan dadkeena aan u sheegno way og yihiin nimankaas tabardarridooda way ka warqabaan way la socdaan meesha ay u socdaan oo ay u hogaaminayaan oo ay leeyihiin maaragtay waan joognaa imaada inay tahay meel naareed oo ina ahayn meel dan u ah qof muwaadina ama qof Soomaali ah maaragtay iyo qof ku nool wadanka midna aan dan ahayn inay u jiidayaan waa iska garanayaan dadkeenu way ka baraarugsan yihiin inay qarxiyaan oo dilaan dhaqaalaha ay ka qaadaanna ay ku dilaan ay ku burburiyaan marka waxaas waan ka waantoonay dadkeenuna wuu ogaaday wuu ka waantoobay asaguna canshuur qof lagu cadaadinayo oo aansan xaq u lahayn ama baadihi ma jirto taas dawladdeennuna way ka hadashay xukuumadeennuna waxay ka soo saartay amar wixii ka baxsan nidaamka dhaqaalaha ee dalka u yaala wixii ka baxsan inayna cidina qofna ku khasbi karin annaga ciidanka booliiska ahaana aanu fulinayno haddii alla idmo amarkii ka soo baxay golaha wasiirada iyo madaxdeena sare inaanu u hoggaansami doono haddii alla idmo oo aanu fulin doono cid kasta oo ku kacda nidaam aan waafaqsanayn habraacyada loo dejiyey dhaqaalaha dalkana cidina ayna waxba ka samayn karin ciidanka booliiska dhaxdiisa iyo banaankiisana aanu kala dagaalami doonaa haddii alla idmo wax kasta oo falxuma haddii alla idmo oo bulshada dhaxdeeda culays ku ah aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ka soo qaybgalkiina iyo sidaad noogu sharafteen dhalinyarada tartamaysana waxaan leeyahay guulaysta maantay waa bog cusub oo u furmay dadka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska waxaan rajaynayaa inaad noqon doontaan kuwii lagu daydo oo wax weyn
oo maaragtay maantay aan maskaxda ku hayno ka bedeli doona ciidamada qalabka sida iyo aragtida ciidamada qalabka sida ay dadka Soomaaliyeed ay ka qabaan wax weyn ka bedeli doona inaad noqon doontaan gunaanadka quraan akhriskan ama tartankan gunaanadkiisana waxaan rajaynayaa inaan munaasabad ka weyn oo kale aan dhigi doono inaan ku abaalmarin doono dhalinyarada kaalmaha ugu sarsareeya galaha hadii alla idmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay ka soo qaybgalkiina waan idinkaga mahadcelinaynaa